السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله walaalayaal, waan soo booqanay in badan baan ku taabaynay runtii inaan xaafadan aan soo ziyaarano, walaakin ilaahay caza wajalla maantuu noo qadaray inaan soo booqano oo masaajidadiina masjid ka mid ah aan nagula tukano. waa ilaahay caza wajalla ma aragtaan nicamtiisay ka mid tahay. anu sheekhulcilmina ma yihi, sheekhu sinina ma yihi, wax yarunba niga weyna ya. ama culammadu alxamdulilaah waa inala joogtaa. horay markaa inii wacdin jirtay, iyakaa inigu dadaalay, iyakaa wax inii dhigay. keliya jamaacadada dacwadda waxaa lagu yaqaanaa waa ziyaaraad, waana soo ziyaarteenuun. magaalooyinkay jamaacadadu maraan, tuulooyinka ayay maraan, miigay ziyaartaan, magaalkay u tagaan, dhallinyaraday u tagaan, odayaashay u tagaan. dadkaasoo dhan la ziyaaranaya waxaa lagala hadlaa uun qofka wax dantiisa unbaa loo sheegaa. wax isaga u danay jamaacaddu qofka u sheegaan, iyakoon lacagna cidna ka qaadanayn. marka xadiidkan aan akhrinay ee ka sugnaaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam, macnihiisa kooban waxa uu nabigu yihi: 5 ka qaniimayso 5 hortood. dhallinyarnimadaada ka faa'iidayso oo ka qaniimayso inta aanad gaboobin ka hor. caafimaad qabka, intaad caafimaadka qabtana ka faa'iidaysa caafimaadkaaga intaanad bukoonin ka hor. gacan bannaanidana ka faa'iidayso intaad gacan bannaan tahay ee aanad mashquulin ama wax ku mashquuliya aynan kula soo darsin. gacan bannaaniduna waa nicmada ka faa'iidaysa buu nebigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam. khinaaka qabla faqrika buu nebigu yihi, intaad haniga aad tahay, hani qof baahidiisu ay urursan tahay oo baryada bini aadanka ka deeqtoon oo xaajaadkiisu ay urursan yihiin inta aad tahayna buu nebigu leeyahay ka faa'iidaysa ka hor intuusan faqri kula soo darsanin. sixataka qabla saqamika baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, intaad caafimaadka aada haysid ka qaniimaysa caafimaadkaaga. caafimaadka waa nicmad ilaahay baa bixiya. caafimaadka waxaa gadaal mari doona maaragtaane, xanuun baa gadaashiisa iman doona. xayaataka qabla mowtika buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, inta aada nooshahay ee aanad dhimanin, nolosha waa fursad ku soo martee ka faa'iidaysa ayadana. 5taasuu nebigu ina leeyahay ka qaniimaysta oo ka faa'iidayso, oo wax diintaada wax taraya ku qabso, wax aakhiradaada wax ku tarayana ka qabso. dhallinyarnimadu nebigu ku bilaabay dhallinyarnimadu waa fursadina soo maraysa. hadday mar fursadaasi ay ku dhaafto waama soo noqotoyo kugu soo noqoni mayso. inta uu qofku dhallinyarada uu yahay, gaajana kama cabsado, dhimashana kama cabsado. hurdadu hadday ku yaraatana uma joojiyo, cunadu hadday ku yaraatana uma joojiyo, u adkaystaa. marka dhallinyarnimadu waa fursadina soo maraysa inaan fursadda ka faa'iidaysano
oon ilaahay taacadiisa uga faa'iidaysanno ayaa diinteenna macaaneyna faraysaa. toddobada ilaahay casa wajal u harayn doono maalinta harka alla mooyaane har kale uusan jirinna waxaa ka mida buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi casa wajalla, ninka dhallinyarada ee dhallinyarnimadiisa ku barbaaray ilaahay taacadiisa maalinka hooska ilaahay uu jiro hoos kale uusan jirin kuwa ilaahay hooskiisa hoos joogsan ayuu ka mid noqon doonaa buu rasuulku yidhi. dhallinyarnimadu waa fursad ku soo maraysa, ka qanimayso, beritoole way ku dhaafi, hadday ku dhaaftana kugu soo noqoni maysee ogow. dad fara badan baa maanta 70-80 jir markay gaadheen waxay ku calaacalayaan ay leeyihiin way dhallinyarnimadeydii ayaa mar unigu celiya, han ka qanimaysto ilaahay han soo caabudo si fiican ilaahay han u raalligeliye. dadkii dhallinyarnimadooda ilaahay ku adeecayna qur-aanku si gaar uu ammaanay ayaa ka mid ah asxaabulkahfi baa ka mid ah asxaabulkahf. innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan baa ilaahay yidhi. dhallinyaro ayay haayeen, rabbigood bay aamineenay rumeeyeen, annakuna hanuun baan u siyaadinay baa ilaahay yidhi. way adag tahay xilliga dhallinyarnimada ninka dhallinyaradu inuu shahawaadka naftiisa intuu ka soo hadho uu masaajidka yimaadaa oo salaada jamaca uu ku ilaaliyaa, uu diintiisa bartaa, uu diinta ku camal falaa, uu diinta ilaahay ka shaqeeyaa. way adag tahay. lidaalika sidaasaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam toddobada ilaahay u hadhaynayana waxaa nambarka labaad la sheegay inuu yahay ninka dhallinyarada dhallinyarnimadiisa ilaahay ku adeecay. asxaabulkahf dhallinyaray ahaayeen, waxaa lagu ammaanay inay dhallinyaro ay ahaayeen. suuradda qur-aanka ugu cajaa'ibka badan ee afarta bini aadanka fidnaysa ay ku jirto qisadoodu ayaa ilaahay iyakana taariikhdoodu kaga warramay. yar aamusa, qoladiina korka saaran aamusa dee, yar aamusa. nabiga ku salliya, allahuma salli wasallim wabaarik calayh. innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan baa ilaahay. weliba dhallinyarada asxaabulkahf taariikhda markay culimmadu ka warrameen dad fuqaraaya maaha, waxay ka soo jeedeen dad maalqabeennay ka soo jeedeen baa layidhi. ilaahay bay aamineen oo islaamnimadii bay qaateen. deedna boqorkii baa ogaaday gaalka ahaa. laba mid buu markaa u bandhigay, uu yihi kala doorta inaad diintiinnii ku soo noqotaan oo diintaasi maxay ahayd inay isaga dib u caabudaan iyo maaragtaana in intoo la soo qabto geed intoo lagu xidho dhagaxtuur lagu wada dilo. waxay ka doorbideen dalka dhanba inay uga tagaan dalka iyo diinta. waxay doorbideen inay diinta helaan oo dalkooda ay waayaan. dadkooga iyo diintoodana waxay ka doorbideen diinta inay helaan ay diin la dhintaan bay ka doorbideen oo dadkooga ay waayaan. noloshoodii iyo maaragtaana diintoodana noloshii waxay ka doorbideen diintoodii bay ka doorbideen. leedna markaasaa qur-aanka ilaahay kaga warramo ilaahay uu yidhi wiilal yaryar bay ahaayeen maaragtaanay oo maxay heleen ilaahay bay aamineen oo rabbigood bay aamineen baa ilaahay yidhi. anakuna hanuun baan u siyaadinay baa ilaahay yidhi. ninka dhallinyarada ee dhallinyarnimadiisa ilaahay ku adeeca ee waxa naftiisu ay jeceshahay ka soo hadha ee ilaahay rasuulkiisa raalli geliya, ilaahayna waa ku farxaa, nebiguna uu ku farxaa calayhi salaatu wasalaam. saxaabada rasuulkana radia allaahu canhum badankoodu dhallinyaray u badnaayeen baa layidhi. dhallinyaro oo dhallinyarada nebiga ilaahay ugu gargaaray casa wajalla. muscab bani cumayr baa ka mid ahaa dhallinyaradii ragga yaraanta ku islaamay. muscab markaasaa qoys weliba wuxuu muscab uu ka dhashay hantiilayaal ah. deedna qoyskii dhaqaalaha badnaa uu ka dhashay wuxuu ka doorbiday inuu ilaahay aaminuu nebiga raaca calayhi salaatu wasalaam. deedna markaasuu nebiga u iman jiro, nebiga agtiisuu diinta ka baran jiray. markay reer madiina soo islaameen ayay nebiga weydiisteen maaragtaane cid lagu daro oo diinta iyo qur-aanka sii barta. deedna markaa nebigu muscab buu yidhi or adigu sii raac.
muscab waa safiirkii ugu horreeyey islaamku uu dirta baa la yidhi magaalada madiinu muscab soo gaadhay ayadoo dadka muslimiintu ay fara ku tiris ay yihiin masaajidna magaalada madiina ma leh madarasad ama dugsi diinta ama jaamacad diinta lagu bartana ma leh walaakiin muscab bin cumayr geed hoostii intuu u fadhiistay ansaar ayuu halkaa ma aragtaane diinta ayuu dadka ku baraayay oo intuu baraayay intii nabigeenna uu ka soo maqlay buu ummadda ku anfacayay dacwadda sheegiddeeda iyo diinta sheegiddeedu culummada keliya kuma xidhno culummada keliya ma aragtaane lagama rabo ogow qof kasta oo muslim oo shahaadanaya inta uu yaqaano diinta inuu ummadda ku anfaca looga fadhiyaa intaa taqaano intaad culummada ka maqashay ummadda gaadhsii muscab bin cumayr radiyallahu canhu intii nebigeenna uu ka soo maqlay ayuu muscab magaalada madiina uu ku anfacay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo magaalada madiina aanan soo gaadhin aqal ma jirin magaalada madiina ilaa qoys walba diintu muscab bin cumayr uu dhex dhigay baa la yidhi qoys walba diintu way gashay waa nin dhallinyaro ah oo muddo yaroo kooban nebi maxamed la soo joogay calayhi salaatu wasalaam oo qur-aankii nebiga ku soo degaayay maaragtaane soo qabtay oo soo xifdiyey oo akhlaaqdii nebigeenna intuu soo koobiyeeyey deedna magaalada madiine la yimiday markaa ma jiro aqal magaalada madiine ku yaalla ama qoys ilaa muscab bin cumayr diinta uu geliyey baa la yidhi iyadoo nebiguna soo gaadhin madiina dhallinyaradu mujtamac dhan bay bedilayeen waddanno dhan bay bedilayeen innaga maanta dhallinyaradeenni iyakaa la bedilay ayakoo dhul gaalana aanan tegin oo dhul islaama jooga ayaa maanta dhallinyaradeenni la qallibo la bedelo madaxay ku socdaan madax dhallinyarnimadu waa fursad ku soo maraysa ama taariikh xun bay adduunka kaaga reebi ama taariikh wanaagsan bay adduunka kaaga reebi maxaad ku qabatay dhallinyarnimadaadii adu bal maanta xisaabtan maxaad ku qabatay naftaada ma ku anfacday ehelkaada ma ku anfacday jaarkaaga ma ku anfacday dalkaaga iyo ummaddaada ma ku anfacday mise dhaqan dad kale ay aaminsan yihiin ayaad aamintoo lagaa dhaadhiciyey shaashaddaa yaree moobeelkay dhallinyaradeennu dhaqanka ay ka arkaan ayaa maanta noloshoodii bedilay walaalayaal oo dharkoodii bedilo timahoogii bedilay muscab bin cumayr radiyallahu canhu magaalada madiina intuu tegay buu bedilay isagu markuu nebigu madiine soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam waad ogeydeen reer madiina siday nebiga u soo dhoweeyeen maalin maalmaha ka mid a cali bin abi taalib iyo nebigu sag fadhiya ayuu muscab bin cumayr nebiga sidaa u soo agmaray waa muscaboo marada uu sito maaragtaane badhannadii intay ka googo-een cabaayadii uu sitay qodax intuu soo qaaday buu isku qaqabtay baa la yidhi isku qaqabtay markaa buu nebigu lilmeeyey calayhi salaatu wasalaam uu lilmeeyey rasuulku markuu arkay cali baa ku yidhi maxaad la oyday nebi allow noo sheeg wuxuu yidhi alaa taraa maadaan arkayn buu yidhi muscab bin cumayr miyaanaad u jeedin waxaan xasuustay buu nebigu yidhi muscab maka markuu joogayna noloshii uu ku noolaa iyo dharkuu ku xaragoon jiray iyo kabihii uu xidhan jiray baan xasuustay iyo nolosha maanta uu ku jiray miyaanad u jeedin noloshii ku jiray ee nuucaa hore ahayd ee dharka quruxda badanle uu ku xaragooni jiray uu ka yimiday noloshaasuu u yimiday buuhi noloshaa jidhkiisana waxaa ka muuqata nafaqa darro dharkiisana waad u jeedaanoo qodax ayuu ku qaqabtay noloshaa aad ku arkaysaanna muscab buu nebigu yidhi ilaah iyo rasuulkiisaa kaga raalliya buu yidhi dhallinyarnimadaada ama taariikh fiican baad adduunyada ku reebi ood kaga tegi oo waxaa lagu odhan doonaa yaraantiisii ninkaasi diintuu wax u qabtay yaraantiisii diintuu ku dhaqmaayey yaraantiisii diintuu baranaayey yaraantiisii labada waalid buu u khidmaynaayey yaraantiisii mujtamaca uu bedilay ayaa la odhan doonaa ama waxaa la odhan doonaa yaraantiisii kaasi uu ku soo ciyaaray baa la odhan doonaa ku salliya rasuulkeena mucaad binu jabal buu nebigu yaman u diray keligii mucaad radia allaahu canhu ardaa oo 30 jir weli aanan gaadhin buu nebigu yaman u diray markaa buu nebigu yihi mucaad kaalay yaman baan kuu diree maxaad ku kala saari bal ii sheeg markaasuu yidhi kitaabka ilaahay baan ku kala saari
وكتابك إلهي هداد كويدنا سنة هذا كلا صاري وسنة هذا هداد كويدنا وأن دذالي بودي مركا لابتو نبيكو كدر باحو وأدعو وحيري إله وحا كم هذين يا وافجيي إرجدي رسولك إلهي ودرتي وحي إلهي رسولك أي جعلايين إلهك إلهامي بمحل رسولك intii nabigeena uu ka qaado cilmi ayuu wadan intuu la tago beddelaya saxaabigaas wadan yaradeenu ma waxbay bedelaan sawaalina bedelay ya walina bedelay maanta darkii bay bedeleen timihii bay bedeleen socodkii bay bedeleen magacii bay bedeleen yar fadhiista iska fadhiista dhageysta كصلي رسولك شاب نشأ في عبادة الله إن نقطة لقى دونيا نندل يرى أو دل يرني مدي سكو بربار إله ضاعت دي ساهون معاذ بن جبل أنتي والنبي كبر طيب ودن دن قارسيو كو بدله ودن دن بو بدله ودن دن صادرتين شبابك قبل حرمك بالنبي قول عليه الصلاة والسلام ودن يرمد هذا كفائديسو أو إلهي طاعدي سوق فائديسو آخرة وشقيست كيغا وغا فائديسو إلهي الرالي قلنتي سوق فائديسو ما شاء الله ده هذا لا إله إلا الله ده هذا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بري هداد قبو ودد halka maanta sidaad maanta u cibaadeysan kareysid u cibaadeysan kareemaysid saad u cibaadeysanaysid maanta uma cibaadeysan kareysid hadaad gaboodid baritoole firaaqaka qabla shughlika baa nabigu alayhi salaatu wasalaam intaad gacan banaan tahay ee gacan banaanida aad haysatid ee aanad mashquulinna ka faa'iideysa ilaahay taacadiisa ugaga faa'iideyso نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بالنبي قول عليه الصلاة والسلام لابا نعمة ضد بالنبي قول دتكم ما أنت ويكدق من ولا بدين نعمة ضد وفراغ إيا ماركتانا إيا عافماتك ولا با نعمة ضد وكسوم ريسا هدات كغني ميسن ويده ولا بدا نعمة ضد انت هذا هيسطو هذا الله طاعت دي سي معرفة دي سي دينتا كدقن كيغا أتقشني ويدد واتكقوم من دون تاي يوقوك مالك قيامها فراغ قاعد بناني إنكم ما أنتوا صومالي حدانا هاي وقتك يوان هاينا الدنيا وجمع فائدة سن آخرنا وجمع فائدة سن لذلك وقتك إن ما أنت عندنا قضات تذكر كلا أدونك أوقات دي أدوية قليين لأن أدوية خيرات كجيب الله صباحين إنكم أدوية منو قلين آخرنا منو قلين وح وقتك إن ما أنت وكوب حيفرد قدر عافماتكم ونعمة إلهي كسيو نعمة إلهي بابحي عافماتك يا بحي عافماتك إلهي بابحي إسلام نمدو ونعمة أقوين إلهي بني آدم كوسيو نعمة الله بعد الصور عذاب علماء قارين هذا والنبت قليدا قارن وحيد هذا ما هو عافماتك عافماتك والنعمة إلهي بابحي وحصلاتكم معانين وعافماتك waxa shaqada ku macaaneenaya waa caafimaadka waxa ma aragtaan reerkaaga iyo awlaadaada dhexjoogooga ku macaaneenaya waa caafimaadka waxa hurdada ku macaaneenaya waa caafimaadka hal habeen hadaad bukoto ma seexan kareysid hal habeen hadii madaxu ku wareero ma seexan kareysid fartaayar hadii cidadu ku xanuunto ma seexan kareysid marka intaad caafimaadka aad haysid uga faa'iideysa ma aragtaan intaanad bukoon ka hor إلى عافمات كان إلهي باكيني أو كسيي حنون كنا أضبط سعداء أوجو ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون بإلهي ومن كل شيء كسو أدون كدوش يد الله يلي وأدون كدوش يد الله دقي بإلهي لبن نوع بان كدقني بإلهي لعلكم تذكرون إن المركة كو أنا قادتنا وانضون النبي إلهي كو أن تودان شيء كسو لبن نوع هبينكي مالين تايا كسهور جيدا labka dhidig ba ka soo horjeeda oo adduunka dusheeda dadka ku nool hadii haween laga dhigi lahaa noloshu qiimo iyo macaan ma yeelateen
ركلي هذه اللي قد لهانا نرشق قيمة معنى ميالتين dadka adduunyada jooga haday wada caafimaad qabi lahaayeenna nolosha adduunku macaan ma noqoteen oo macaan ma yeelateen haday dadku wada bukoon lahaayeenna macaan iyo xarakad ma yeelateen inay ina bukooto ina caafimaad qabto ina lab noqoto ina dhidig noqoto ina fuqara noqoto ina aghniya noqoto ina ay dhalato ina ay dhimato ina muslim noqoto ina gaalo noqoto ina ay bukooto ina caafimaad qabto ina ay faraxdo ina murugoto إلهي بان نولشا أدونك صدا ugu talagalay ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بإلهي إلهي حقي صوره كون كان إلهي با إسكاله أدقنا إلهي با إسكاله فرصدها إلهي با كسيي دل يرمد وفرصد إلهي با كسيي وكسومري haddaad ka tagta ma soo noqonayso caafimaadku furastaas uu kamid yahay ka qaniimayso ilaahay taacadiisa iyo raali gelintiisa ugaga faa'iideyso faraaqiya gacan banaanidu waa nicmo ilaahay ku siiyay intaad gacan banaantahay waa nicmada ka faa'iideyso oo ilaahay ugu dhawow oo iimaankaaga ku dhiso diintaada ku baro wixii adduunyadaada wax ku tarayana ku qabso intaanad mashquuli ka hor waa mashquuli ففروا إلى الله إلهي حقي سوء أرد مالك لها أردن الباب ذا كلونا وحريه الباب كستو مخلوق وكل شيء وحد ما وقول الباب كإلهي بافورا كاسا للربا إلا قراعو إلهي إلا بريو فراغك قبل شغلك أبو نبي يقول فراغك قبل شغلك أنت أنا مشغول maalin baad mashquul markay caruurta kugu badato ee mas'uuliyadku kugu bataan mashquul baad noqon laakiin intaan dhalinyarada ahayd gacan banaan tahay faraaq baad haysataa ilaahay baro oo diintaada baro oo cibaadadaada adkayso cibaadadaada dhis waxaad wax ku noqonaysaa waa ilaahay taacadiisa waxaad wax ku noqonaysaa waa ilaahay macrifadiisa waxaad qiimo ku yeelanaysaa waa diintaada ku dhaqankeega barashadeeda marka ilaahaaga cilaaqo fiican la yeelo haddaad maalintaad barwaaqada ku jirta ilaahay aad garato maalintay dhibaata kula soo daristo ilaahay adigana kuu soo gurman doonayo ugu xayaataka qabla mawtika buu nabigu alayhi salaatu wasalaam xayaataka qabla tannooshahay noloshuna waa fursad maanta caawa waa wada noolahay bari inaan gaari doono ilaahay baa garan qof walba saacad buu leeyahay saacadiisa hore una dhaafi maayo dibna uga dhici maayo dadka inta badan markii la qabto waxay yiraahdaan rabbi irji'uuni rabbi lawla akhartani ila ajalin qariib fa asaddaqa wa akun min as-salihin walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ba ilahi ajashu markay timaado ee qofka lagu soo xaadira ayuu mid walba uu leeyahay ilaahu maadi yarikaadi sida oo maxaa soo qabsan lahay saalihiinta kamid noqon laha amal wanaagsan ba ka shaqayn laha صدقة أيان لسه بحي لها زكاة أيان بحي لها مركز لنا يا مي هذا ساعد تماضو عندنا إلى هيدا بديك ما يوقف والله قاضي قبرك يبى الله دقي قبرك مركز الله دقي نواك أورنا يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وعلى أورنا يا كلمة أسكيرية قداشيسا وحا حاجز مانع آخرة وقلي الدون دب ونقو كريما يحدي طول هكذا كسنين بالورن دونا الناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا بدعال بن أبي طالب dadku way hurdaan maanta way jiifaan qof walba markuu dhinto hurdada ka soo kici doona yara sidan ma mooday sidan ma mooday aw islaantii ma jirto ilmihi ma jiro qabiilkii ma jiro lacagtii ma jirto qabqabtii ma jirto way dhamaatay adii rabbiga baa isku hadhay qabriga dhexdiisa ugu abdi ghasaluuk wa kafanuuk wa fi at-turab dafanuuk law dhallu ma'aka ma nafa'uuk adoonkayigiyow way ku soo maydeen way ku soo kafeen ciida intay kala dilaaciyeen way ku dhex dhigeen
hadday halkaa kula soo geli lahaayeenna tolkaa waxba kumay tareen cid kaloo ku hadhay agtaada ma haysaa aan aniga ka ahayn camalkaagunbaa ku hadhay ugu yaa hadhaya camalkaagu hadduu wanaagsanaana wanaag baa kuu bilaami insha allah wanaagsan camal wanaagsan baan la tegaynaa aakhiro insha allah dhacda hadduu camalka uu xumaana qofkaasi halis buu galayaa ogaada marka shanta tharwadooda ilaahay na siiyey dhallinyarnimadu waa fursad caafimaadku waa fursad firaaqu waa fursad ghinaa intaad ghaniga aad tahay ghani waa maxay waa qofka deeqtoon ee baahidiisu ay kooban tahay ee isagii reerkiisana quutalyoomka ugu helaya waa nicmad intuu haystay waa nicmada ugu dadka qaar baa ilaahay ku cuquubaya faqri labada indhood inta u dhaxaysa uma faqri loo saaray faqri mooyaane wax kaloo arkaya xataa naarka biqi maayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam lababa ilaahay buu ka magan galayay allahumma inni a'uudu bika min al-kufri wal faqri buu nabigu lahaa ilaahu gaalnimadana adigaan ka magan galay faqrigan ilaahu aanu adigaan ka magan galay marka faqriga allah inaga faydo aamin dhahada faqriga ilaahay buu nabigu ka magan galayay faqrigu waa maxay waa adoo ku mashquula uun maxaan anigu cunaa ilmahaygana maxaan siiyaa sidee noloshayda aan u dhisaa dadna qofkaasi marka aakhiradii halka uu ku iloobo mid baa maalin jamaacadku waa kanoo dadka jawaar khuruujna raac bay ku yidhaahdeenoo wuxuu yidhi ciyaal yaryaroo waxaan aqaanaa buu yidhi ciyaal yaryaroo waxaan haystaa ilaahay aanan oqon daani raaca buu yidhi kuwaas gaajay u dhimanayaan war haddaad joogtana ilaahay baa wax siiyaa lagu yidhi haddaad dhimatana ilaahay baa wax siin haddaad ka dhooftana ilaahay baa wax siin adigana ilmahaaga iyo reerkaaga dayacba jamaacaddu kuma leh masaariif waxaad u haysana siiyo uga kaalay ilaahay dartiina u baxo diinta nagala shaqeey baa lagu yidhi ummaddani diin bay u baahan tahay maanta dadku inay hagaagaan ma rabtaa haa dalku inuu hagaaga ma rabnaa haa waan rabnaa dalka iyo dadku waxay ku hagaagaan waa diintuna shaqay u baahan tahay nagala shaqeey baa lagu yidhi waa marka uu qiilkan keenayo uu leeyahay waad war laadihiin tabliiqow hee afar ciyaalo waxaan hayaa buu ilaahay aanan oqoon aniga una taqaana markaasaa lagu yidhi hadday iyagu ilaahay oqoonin ayaa yaqaana allah baa yaqaana baa lagu yidhi غناك قبل فقرك ابو النبي عليه الصلاه والسلام يقول فرصه الشناد انت غنيغا اتحي معناها باهيدادو اي كوبان تحي اي قوت اليوم كاغنا اد هيستد انت البابدا فقرك لوغو فرين كفايده سبو النبي كليه وعبادته كردي والهي طاعتي سكددال ومساجد تعمير المساجد كددال ودينته برشديده كددال ودينته دس oo qofka bini aadanka waxa uu qiimo ku yeelanaya waa markuu fursadahan uu nabigu sheegayo markuu qofku ilaahay taacadiisa uga faa'iideysto ayuu qofku adduunkan iyo aakhira uu macna yeelan markaas qiimo yeelanayna maanta dhallinyarnimadeenu dhinac kasta ay rabaan inay iska qurxiyaan xagga daahirka muuqaalka sare dhar quruxsan kaba quruxsan tiba quruxsan mobile quruxsan gaari quruxsan gaadiid quruxsan aqal quruxsan ilmo quruxsan haddaad adigu gudahaaga aad ka quruxsan tahay oo qalbigaaga ilaahay uu ku tacalluqsan yahay dhaqankaaguna dhaqan islaama uu yahay ilaahay jalla wa ala nolosha wanaagsan ee doonayso asaga ku hayo ilaahay asaga ku qurxin wax wanaagsan ma rabno wax wanaagsan soo ma rabno waa inaan noqonaa addoommo ilaahay oo wanaagsan muslim wanaagsan noqo muslim wanaagsan muslim mujtamac badilaya noqo muslim la badila maaha مجتمع لا بديليا ماها مسلمك وحبو بدلا مسلمك اسغا لغو دايداي عيد اسغو كوما دايدو مسلمك اسغا لا راعاي اسغو ددك لما راعو بعد مسلمين عالمك كنا الميكا لا راعي مسيكا قال لا راعي
إنك لين وطايو لين الستة ودل يردني ما تجعمهن كم جيران دت كلا جعنت وقلين لكن دت كلا إليهين أيا دل يردني ما تقات نبي محمد عليه الصلاة والسلام مجتمع وحو أدونك كبيري أسقى قضينا يا بس سقى جعل ودقنكي سجعل وشريعتي سجعل ودينتي سجعل وطبيعتي سجعل وسيد النبي قردغ مجري كضينا يعيد كلام كضينا معلم بو أرك الصحابة دي سقار كمدا مركو ويسقى تبيها كذا تجر كيسا أي اسمر مرينا ين أي كبر كيسنا ين مركب النبي عليه الصلاة والسلام كويري بحاي نقول كل فسد هاينا سميسان وبيها جر كيجا أنا قام ويسقى تجر كيجا صومري إن هذا اسمر مريسان وكبر كيستان محاوج جدا مليش شيء وحير هذا جعله أنو قبل إله يا رسول كيسا أي نصد أو سمينا إنا مركب النبي يقول وفي عن تحي لكن وحن النيش شاقي هذا دون إنسان إلهي النبي محمدنا جعلاتان أما إني يكو أي نجعلاتان هذا دون إنسان عدة أمانة إني ديبت أمانة وهي برسولكم هذا شاكين إنسان الروكو شاكية هذا عد درس الله نقطان عدة درس كالتهين درس لمدود وناجية برسولكم عليه الصلاة والسلام مسلمكم وإنه نقضى قف أمانة له وحين لقوا ديبتو أمانة دوا محل ريركا قوى أمانه علمها قوى أمانه وقتها قوى أمانه عقلها قوى أمانه عمرها قوى أمانه وحي إلهي أديك وكسيه وأمانه دين الإسلام كإلهي وكقدق وأمانه أمانة دا وحال لقاربا إن إلهي كو ديبتي أدو إلى الصوت هلكي ودك ويراد دكتا أمانة دا بني آدم كو ديبتينا وين هذا يكن أمانة هلكي لقاربا وين هذا دكتا ضدك هذا شاكين بو النبي يقول هي رونكو شاكين رون مؤمن كبان ما شاكو مؤمن كبان ما شاكو هذا الدرس هذا عند نقطتين هي عدة درس هذا النقطتين بو النبي يقول درس لي ما دي وناج مسلم قوين وهذا قف درس وناكسن دين الإسلام هو أخلاق ودقن دقن إلهي كو أبو ري أدخل دقن ميسو دقن وناكسن خلقك إلهينا دقن وناكسن أدخل دقن ميسو هذا هو دين الإسلام دين الإسلام هو تاس سومالي دين الإسلام بقول مسلم بان هاي بيكون بقول مسلم بان حق النظام كجغرافي بقول مسلم بات هاي لكن حق الصلاة تكشده بقول مسائل تكت إمسا دين كو دقنتا إمسا دين جعل إمسا دين كشقيسا إمسا دين برتا إمسا دين تقيميسا بقول مسلم نواتا حق الجغرافيا لكن كو دقنك هو إسلام كمجتمع إنه ما أنت وحنا باهنا هي إن هلا مجتمع دين كل رقمايا نبي محمد عليه الصلاة والسلام تذكر النبي محمد دين بكبر إنه لو شو ده دين بقال هذا مدينو يمد النبي أقل اسمه أقل استكما فكرنا كما بلابن إما قدرتكم قال هذا المقدسين هذا النبض عيد الإمام بوحبيد السنة يعني وروح عد السنة سواها كهر أيها المسلم ذاتك إن لا دسا ما أنت أنو باهنا هي ذاتك إن لا دسا يقين تودل لدسو صلاة تودل لدسو أقوان تودل لدسو أخلاق تودل لدسو دقن كوغل لدسو مدينة سوق على النبي عليه الصلاة والسلام هل قرير كي صدقي لها النبي ما على مدى السنة مساجد النبي ما ضوء على مدى مساجد كوا ماشى مسلمين تقول هينا كحرمان أي كنحن هذا ناس كقصوا حرمان وياه لأن مساجد كي فقير كي بائمن ومدحدي بائمن ومساكين تي بائمن ومسافر كي بائمن والرمي كي بائمن والرمجال كي بائمن وكيبو كي باللجو أوغان وكمجال هذا كم بقام باللجو أوغان وكدنتي باللجو أوغان وكجورسنية باللجو أوغان مساجد كوا ماشى هذا كمسلمين تو أي أحواشكو كلاقاتان إسكجور هيان إسكو أوغادان إسكو سلامان ويان أي كل من ويان
وماشي يكون اسكغا خدمان دادكنا الى دادكنا الهي اي كغا خدمان ويان مسجد marka dadkeena intee maanta masaajidda ku xidhan dhalinyarada inta masjidka ku xidhan iyo inta Facebook ku xidhan mid ka badan ya awada qososheene arbaalkaas oo nahaysta baalkaas maskaxdii indhihii uu inaga la baxay ilaahu naga soo saar aamin dhahada ilaahu qalbigeena ka saar ilaahu qalbigeena waxa ka madoobay jacaylka bahalkaas waqtigiini oo dhan maanta waxa uu kulmay maaragtaana waa bahalkaas marka nabigeenu kaleey salaatu wasalaam 23 sanadood wuxuu ku dhisay ummad isku niyada isku hadafa isku meel u jeeda isku aragtiya ummad meel u jeedu nabigu keenay adduunka meel wada socota ummad kala socota ma ummad wada socota ummad isku qalbiya isjecel isku damqanaysa isku naxariisanaysa isku ducaynaysa islaamnimada wuxuu ku zuuliyay qabyaaladii buu ku baabiyay rasuulku qabyaalad Bilal al-Habashi ya Salman al-Farisi ya Suhayb al-Rumi ya Umar al-Qurashi ayu nabigu meel kale wada fariisiyay markaasuu nabigu la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa wali dhageysta buu nabigu kaleey salaatu wasalaam dadku aadan bay ka soo wada jeedaan aadan baa inni wada dhalay oo nabi aadan awlaadiisii baa tihiin آدمنا عرّا أيو كسو جيدا والنبي آدمنا عيد بلغا سميي نكا عربيقو نكا عجميقا كاقما فضل بنا عرب نمده وعلقو كلا سريان والنبي يقول والله كعبس علقو كلا سريان الله كبق تاسو النبي يقول مدي سأبري على أساس الإيمان مرقاسو نكي مهاجر كاها إما كلا سو هجرو دي وحولو ولا لينين أنصارية ninkii ansaariga Madiina sii joogay ee dadka magaalada Madiina degaankooga ahaa waxa nabigu walaal kala dhigay nin ansaariya Sa'd ibn Rabi' iyo Abdurrahman bin Auf ayu nabigu walaal uu ka dhigay Sa'd ibn Rabi' gacantu qabtay Abdurrahman bin Auf wuxuu dhigayso maadaama nabigu walaal labadeena uu naga dhigay ninka magaalada Madiina ugu dhaqaale badan baan ahay maanta laga bilaabo dhaqaalahaygii waka waxa doonta ka qaaday buu waxa doonta ka isticmaal hay weydiina liga buukay laba dumarana waa leeyahay buu taa jacashahay ay sheego waa ku dhisay buu ku aqaladiisina uu tusay kala dooro aqalka doonto waa ku siinay madaxa intuu taabtay buu ku yiri walaal adiga iyo xoolahaaga iyo reerkaaga iyo ehelkaaga Allah ku barakeeyo buu ku yiri anigu nin ganacsiga aqaana ayaan ahay suuqa magaalada Madiina igey buu yiri marka suuqii magaalada Madiina tusay baa leeyahay Mus'ab bin Umar Abdurrahman bin Auf markii dambe taajirka magaalada Madiina isaguna uu noqday keen ma oran islaanta keen oo lacagta keen oo aqalkan isii ma oran asxaabtu tamac ma lahayn dad qanaaca la bay haayeen dad dowrsoon bay haayeen inaga dadka muslimiintu maanta iska daa wax kale hay'adaha say lacag iyo dhaqaale uga heli lahaayeen ay aqalla yaro buulal oo beenbeenay sameeyeen beenbeena buul beenbeena soo ma jiro بس أدوك المبيا لما له بولشاس بوش أقل بوشة أو بامبانا هذا مدرس كوريين بهياد الله شقية مرجع بقولي مالين تاسن هياد الصوّ ذايه أقل الذي يريد بوششكي سيدح فريستا مرجع سميد أيدي يدوك مدح فريسين وراوي إيمان كإسلام ما دي عاوي بريق قال واحد قال لك السوق هذا أيها مسلمين تصدق بريان ما أنت دوقي دوقيه ما أنت سوق حين أقل الذي بوششك اللي دح فريسيه ولقليه هاي maalinta hay'adii baa soo mareysay macooyo iyo looga sii qaad halkaas sii fadhi oo iska sabir oo biyaha sii cabo kuleeya war maxaad duqdo cadibaysa ilaahay maad gacmaha hoos dhigatidaa hay abaartu la fayd milaadahay maanta ha colaadu la fayd milaadahay ha roobkii ma aragtaan la bila barakada uu noqday laana qalbigii baa jeestay maanta maalinta ummadan ilaahay u soo noqoto ilaahay xaaladdeena isaguna uu bedeli إن توبت كنا نبهنا مركز
nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waxa uu baray inay ilaahay baryaan in baahidooda ilaahay u sheegtaan inay qanaaco muujiyaan qanaaco walqanaacatu kanzun laa yafnaa qanaacaddu qofka bini aadanka hadduu helo waa khasnad qofka aana ka dhammaanayn gaalo sidii loo baryayaan innaguna maanta halkaa ayaan maraynaa halkaa taa aan nii sheegay tu la mid ah saxaabada rasuulkuna sacad binu rabiic buu u duceeyey cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi xoolahaaga allaha kuu barakeeyo reerkaaga allaha kuu barakeeyo nin ganacsiga aqaana ayaan ahay magaalada madiina suuqayga ii dhaadhici buu ku yidhi ilaa markii u dambaysay uu noqda taajir tujaartii reer madiina ka mid ah markaasuu isaguna sidaa u bixinaya xoolihiisa sidaas faqiirkoogii baa ilaahay ku xidhmay hanigoogu ilaahay buu ku xidhmay madaxdoodu ilaahay bay ku xidhmeen dhallinyaradoodu ilaahay bay ku xidhmeen haweenkoodu ilaahay bay ku xidhmeen tujaartoodu ilaahay bay ku xidhmeen reemigoogu ilaahay bay ku xidhmeen ree magaalkoogu ilaahay bay ku xidhmeen horumarku maahin waddo lagu sameeyo iyo dhakhtaro laguu sameeyo horumarku maaha horumarku waxa weeyaan waa dadkanoo ilaahay sida wax looga qaatan la baraa horumar la yidhahdaa dadkoo barta sida ilaahay wax looga qaato taasaa horumar la yidhahdaa yaa rabbi araytanaa qudrataka fa arinaa cafwaka buri ibraahim aladham isagoo markab saaran ayaa baddii baa kacday ninkii naakuudigii doonta waday baa ku yidhi dadkii markabka saarnaa baddii baa kacdo dabayle iyo duufaanaa yimidee nin waloo saad ku badbaadi adigay kuu taallaa markaasaa wada oohin la baroortay waxay dhammaan ay yaqiinsadeen inay wada dhimanayaan nin sheekha ogaaya oo ogaa sheekh ibraahim aladham unbaa sare kiciyo ku yidhi alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi buu ku yidhi yaa sheekh ibraahim miyaan ad arkayn buu yidhi annagu halaagga aan ku sugannahay waa la halaagsamay ilaahay noo bari hal mar keliya go-a intuu iska qaaday ayuu samada eego wuxuu yidhi yaa rabbi awooddaadii baad na tustee cafigaagana na tus bulo ilaahu sakaayo cafi buu yidhi ilaahay wixii o dhan uu hagaajiyey mar keliya weli ilaahay weli imisaan awliye leenahay ree hebel imisay awliye leeyihiin lama yaqaano maanta laakiin imisaa siyaasiya qabqabla aad leedahay qabqable iyo siyaasi iyo hay-adaha kuwa ka shaqeeya iyo waxaase dadku maanta ku faanayaan waxaa la doonayaa in lagu faano inay ummaddu tidhaahdo war annagu rag ilaahay yaqaanaan haysanaa ilaahay baan barinaa annagu baahideeda ilaahay baan u sheeganaa ciidaan ilaahay ahayn ma tuugno ma barino gaaladan meelaha dadka ku urursee wax siisiinaysa mayna jacayle kuu siinayaan baad moodaysaa may innakiyo ilaahay bay gaaladuna kala goynayaan yay kala goynayaan ma taqaanaa muslimka iyo rabbigiisay kala jarayaan gaaladu fa ilaahay han baranno insha allah dhahada alxamdulilah islaamnimada waan ku dhalannay waa naqaanaa ilaahay laakiin iimaanku ugu ziyaadaa una naaqusmaa waa madhab ahlusunna waljamaaca iimaanku waa qowl waana camal uu biirayaa marka taacadda iyo cibaadada iyo dacwadda iyo diinta laga shaqeeyana iimaanku uu kobcayaayo uu ziyaadayaa qaflad iyo macaasi marka lagu dhacana iimaanku waa naaqusmaya maanta inaan iimaankeenna dhisno iyo inaan aqala dhisnay midkaan u baahanna bal sheeg war ballinkii sidaa loo gacanta taag fooqaq waaweyn inaan dhisannay iyo inaan iimaan dhisnay midkaan u baahanna ummadda iimaanka in laga dhisaa maanta loo baahan yahay yaqiin billaah ummadda yaqiintaa ka dhaawacantay maanta ogaada kuwiina halkan joogana dhulka gaalada un baad ku ducaystaan oo ilaahu nageey ilaa man raxima rabbi mooyaane war dhulkaaga aamin oo diintaada aamin oo ilaahaaga aamin oo inaku is aamina oo waxaad ku ducaysataa ilaahu beledkayga nabadna igu sii arsaaqad xalaalana igu sii war qof walba dhulkiisuu sharaf ku leeyahay qofku diintiisaa sharafta u yeelaysa insha allah dhahada marka ilaahay dartii u baxa oo dacwadda u baxa oo diinta ka shaqeeya waxay ka dhigan tahay war adiguna isdhis ummaddan dhismaheygana ummadda kala qayb gal ummadda
dib u dhiskeyga shaqada diinta waad ka qayb qaadan kartaa ka qayb qaada shaqada diinta yayna fursadda ku dhaafin maanta waa adduunyaan joognaa baritoola banka qiyaamana iskugu iman doonaa ogaada kulligeen fursaddaas yayna dhaafina dacwadda ka qayb qaata oo yaana dacwadda culimada iyo maaragtaan macallimiinta iyo jamaacadada socda kaliya yaan lagu eegine war diinta dhaqaalahaaga wax waad ku tari kartaa aqligaaga wax waad ku tari kartaa cilmigaaga wax waad ku tari kartaa hadalkaaga diinta wax waad ku tari kartaa ragnimadaada diinta wax waad ku tari kartaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ninna ma dhaafin nin walba kartidii ku jirtay nebigu uu maalay uu isticmaalay rasuulku kii caqliga badnaa caqligiisa uu ka maalay nebigu kii dhaqaalaha lahayena dhaqaalihiisii uu maalay kii raganimada lahaa raganimadiisii uu maalay khaalid ibn alwaliid radiyallahu canhu ayaa markuu soo islaamay buu seeftii nebiga u keenay waa maxay seefta khaalid oo maxaan kaaga qaadaa saxaabadaada rag badan baan ku laayay iga qaba buu ka yidhi lagaa qaadi maayo xagga kale aad ula jeesanaysaa buu nebigu ku yidhi raganimadaadu sow baatilka xaqa kuma socon marka hore haa hadda raganimadaadii iyo geesinimadaadii xagga baatilka ula jeesa buu nebigu ku yidhi xagga baatilka ula jeeso waa kaa baatilka adduunka haysta maanta geesinimadaada uu ilaahay ku siiyey xaqa u isticmaal kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisii wuxuu ku bixiyey xaquu ku bixiyey kii cilmi lahaa cilmigiisii dacwadiiyo diintuu ku bixiyey kii wakhti lahaa wakhtigiisii diintuu ku bixiyey asxaabu rasuulillaahi radia allaahu canhum nin walba intii uu hayey ayuu diintan ilaahay ku darsaday marka dacwadda culummada keliya maaha waxaa ka mas-uula dacwadda muslim kastoo ashahaadanaya inta aad taqaanid baa la rabaa ummadda inaad wax ku anfacdo inta kartidaadu ay tahay ilaahay ku siiyey diintaada gasho markaasay diinta noloshaada iman deedna markaas adduunkan iyo aakhira diintaad ku liibaani insha allah dhahda yaa saa u diyaara ma gacanta mise waqtigaad bixinaysaan yaa in badan baa axbaabta igu lahaayeen soo ziyaaro sheekh maxamuud iyo macallinkay waa nii imanay laakiin masaajidka magaciibu ahaa masjid uliimaan allahu akbar magaciisu waa cajiib wa antum jamaacatu liimaan insha allah dhahada waxaa laynaga rabaa jamaacadda inaad saartaan ilahay dartu u baxdaan oo fadhiga ka kacno madus سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت قريبا فإن تلفت نفسي فلله ذرها وإن سلمت فكان الرجوع قريبا إمام شافعي رحمه الله هل كل السنوات قرن إساء هل كل جاي هنا كما قرصنا ومصر markaasuu dhulka ayaan ballarkiisa iyo baaciisa ayaan u gooshay Abu yiri si aan markaa muraadkayga aan u gaadho haddii aan naftaydu sidaa ku tagtana buu yiri ilaahay bay ajar iyo thawaab ay ku leedahay haddii aan nabad qabana maalin baa soo noqon doontaa buu naftiisa ku waaninayay mana soo noqon waa ka Masar ku asal sharqan wa qarban buu madhabkiisu gaadhay adduunka oo dhan ummadan waa inay la socotaa ummaddu xaqa war haddaad adigu xaqa la soconi weyday war baadilkii baa lala socdaa baadilkii waa dhaweyto masaajid aan ku baxsanayn wadannada qaaradda Yurub waddan ka mid ah dhallinyarna la socotay unbu mid la soo gala buug af Soomaali ku qoran war yaa ku siiyey naag caddaan iyo nin caddaan ay dhibay maxaaba ku qoran buugga nabi ciise ilaahay buu hayo rumee baa ku qoran buugga dhanba markaas aan ku dhaw annaka tabliiq u soconay ma annaka la tabliiqay والله يا والله war hadii jamaacadii ilaahay dartu u socotay qaaradda dacwadu tagtay la dacweeyay ka qaaradda hunguriga u tagay ka waran badbaadaya markaas harakada ayaa ummadu qiimo ku leedahay marka inaad afar bilood insha Allah dhahada ijtimaaci Djibouti badhow wuxuu dhacayaa bisha koobaad 12keeda ijtimaaci Muqdishona wuxuu dhici doonaa bisha labaad 16keeda كلامنا اجتماع بالله نقرب مجمع هلكن فديو إن إله درته بحضان اليوم ديار سفي عن قعنته وتاجر
أنا قعدت أنتم قصة جبوت اللي تجي معي لنا ما شاء الله